asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahayga waan idin salaamay adduunka meel walbaad ka joogtaan. kusoo dhawaada channelkeena Muna's Home. waa walaasheena Muna. saad arkaysaan hadda subax ayay inoo tahay, anaga 3 saac ama 9 subaxnimo ayay inoo tahay. caruurtii ayaan mardhow xanaanadii aan geeyey, anigana qorshahaygii iyo plaankeyga ayaan ku socdaa. videogani maanta waa video dhiirigelin oo waxaan ugu talagalay qof walba oo channelkeyga ku xiran inuu ka faa'iideysto insha Allah. walaalihiinana idinka aad la wadaagtaan si ayagana dhiirigelinta ay uga qayb qaataan. wax yar kaliya ayaan rabaa in aan idin xasuusiyo oo ah hooyo walba oo maanta dhageysanaysa ama gabar walba maanta dhageysanaysa oo aanan ogeyn yacni nolosheeda waxay ka damacsan tahay ama waxay rabto in ay sameyso ama nolosha heerka aad rabtay inaad ka gaartid aadan ogeyn oo yacni guriga aad iska fariidid kaliya ama wax kale aad ku mashquulsan tahay ayaan rabaa insha Allah in aan dhiirigeliyo. qaarkeeni kaleetan insha Allah idinkana dhiirigelin ayay idin noqonaysaa. mar walba aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay inaan is dhiirigelino oo aan is xasuusino. okay, waxaan rabaa in aan idin xasuusiyo markii aad yareedeen qof walba markii uu yaraa wax ayuu ku hamin jiray, wax ayuu jeclaa inuu noqdo. waxaa laga yaabaa yacni inaad rabtid inaad noqotid macalimad, laga yaabaa inaad noqotid dhakhtar, inaad hamisid, laga yaabaa inaad hamin jirtid inaad noqotid business woman, laga yaabaa inaad hamin jirtid inaad noqotid maxay ahayd qof oo darawal ah. marka qof walbo oo bilaadan ah mar ayuu riyoon jiray, mar ayuu hamin jiray. marka taas ayaa raba in aan maanta aan idin xasuusiyo oo aan idin dhiirigeliyo. maadaama yaraantaadii aad yacni gool aad lahayd oo riyoon jirtay oo wax aad hamin jirtay, waxaa aad iyo aad muhiim u ah in aad riyadaadii aad sii rumaysid. qofka oo laga rabo maanta riyadiisa inuu rumeeyo waa adiga. qof kale oo shaqadii kuu qabanaysa ma lahan, adiga ayay shaqadii ku sugaysaa. okay, haddii marka maasha Allah maanta alxamdulillah ilaahay reer uu ku siiyey, reer aad yeelatay, caruur aad yeelatay, micnaheedii maahan riyadaadii inay meeshaas ay kusii joogsanayso. riyadaadii waxaa la rabaa mar walbo in ay kula socoto, mar walbo in aad isku daydid sidaa riyadaada aad ku rumeyn lahayd. mar walbo si walba yacni nolosha ay ku imtixaanto waa inaad riyadaada aadan hilmaamin iyo heerka aad rabtid nolosha inaad ka gaartid, in aad sii shaqaysid oo sii dadaashid ayaa la rabaa. si walba nolosha ay kuu xiisho waa inaad maxayd kacdaa oo aad istaagtaa. hamigii aad lahayd markii aad yareed, wixii aad ku riyoon jirtay, wixii aad hamin jirtay waa inaad sameysaa. si walba nolosha maxay dhibaato rafaad aad ku aragtid, riyadaada marnaba aad aha hilmaamin, riyadaada marnaba yacni ha tuurin. aad iyo aad ayay muhiim u tahay in aan is xasuusino. qof walba oo maanta oo idaawanaya videogeyga mar ayuu riyoon jiray, mar ayuu hamin jiray inuu adduunka wax uu ka noqdo, mar ayuu hamin jiray inuu wax uu barto, mar ayuu hamin jiray in dhibaatada ama rafaadka uu ka baxo. marka haddii reer aad yeelatay micnaheedii ma ahan in aad goolashii iyo riyooyinkii aad ku rumeyn jirtay aad yacni ku riyoon jirtay in aad iska hilmaamtid. waa inaad sii dadaashaa, waa inaad kacdaa 10 mar. haddii aad kuftid 11aad waa inaad kacdaa. waxaan tusaale ahaan aan idinku siinayaa ilmaha markii ay yar yihiin, markii saan loo dhalo isla markii kama ordaan. okay, fadhi ayay bartaan, gurguurasho ayay bartaan, istaag ayay bartaan, socod ayay bartaan, kadib ayay ordaan. noloshana waa sidaasi. nolosha way iska imtixaan badan tahay, way iska dhibaato badan tahay, laakiin si walbo oo nolosha imtixaan aad usoo martid, dhibaato aad usoo martid, si walba yacni u niyad jabtid, culays badan aad soo martid, daal badan aad soo martid, in aad ka gudubtid ayaa la rabaa oo aadan seexanin. insha Allah qof walbo oo maanta idaawanayo waxaan jeclahay insha Allah in aad riyadaadii dib u soo celisid, in aad riyadii markii aad yareed waxyaabihii aad ku riyo jirtay in aad isku daydid. haddii yacni nafsadaadii aad hilmaamtay oo aad hilmaamtay waxyaabihii aad ku riyoon jirtay, waxaan jeclahay maanta dumar walba oo dhageysanayo in aad riyadaadii dib aad u soo celisid. meeshii aad uga tagtay in aad maxayd ka sii wadid insha Allah. dadaalaa ugu gaaray Soomaalida ay dhaheen qofkane markii uu wax uu ku dadaalo oo practice badan uu sameeyo oo isku taxallujiyo oo ku soo rafaado, markaas ayuu maxay ahayd gadaal ayuu ka raaxaysanayaa. wixii maanta yacni tacabka maanta aad beeratid beri ayaad cunaysaa, mirihiisa macaan beri ayaad dhadhaminaysaa. marka walaalayaal insha Allah si walba aad maxay ahayd caruur guriga ku joogto, si walba oo nolosha dhibaato badan ay iska jirto, ilaahay tawakkal saaro, yacni dadaalkaada meeshaas ka sii wad insha Allah.
dadaalaa wuu gaaray Soomaalida ay dhahaan. Anigana insha Allah mar walba waxaan jeclahay in aan idin dhiirigeliyo oo aan idin xasuusiyo. mar way jirta anigaba waxbarasho waxaasi aan ka niyad jabay oo aan jeclaan lahay in aan helo qof i dhiirigeliyo, qof i push gareeyo, qof i soo xasuusiyo riyooyinka aan ku riyoon jiray markii aan yaraay. marka maantana aniga ayaan idin xasuusinayo waxyaabihii aad ku riyoon jirteen in aad rumaysaan, in aadan ka caajisina. 10 sano ha idinku qaadato, 20 sano ha idinku qaadato, 5 sano ha idinku qaadato, micno kuma fadhido. muhiimadu waxaa waaye kaliya waxyaabihii aad ku riyoon jirtay, hamigii aad jecleed inaad gaartid insha Allah. caruurtiina waxaad ogaataan role model ayaa u tihiin, maadaama caruurtii marka adigii ay kugu dayanayaan oo adigii ay suurad ay ka dhigteen. waxaa wanaagsan marka biri sidaad jeceshahay caruurtaada in ay ku soo baxaan waa ina adiga hadda aad u noqotaa oo hadda adiga aad tusisaa oo wadadii wanaagsan aad tusisaa oo aad tusisaa dadaala wuu gaaraa oo aad tusisaa in riyadaada aad rumayn kartid. caruurta dhiirigelin badan ayay u baahan yihiin, inspiration badan ayay u baahan yihiin. waxaa inspiration oo u noqon kara waalidkiisa oo maanta riyadooda rumaynaya, riyadooda gaaraya, dadaalaya. cunugii markii uu arko wuxuu isleeyahay hooyo aaba saanba ayay u dadaalayaan ayagoo maxay ahayd intaani jira weli wax ay baranayaan, weli way shaqaynayaan, weli way ordayaan. maxaa adiga ku seexiya marka ilmihiina insha Allah hadii aad rabtaa mustaqbal ifayo in ay helaan waa in adiga hadda dariiqii aad tusisaa oo aad aragtaa. hadii hooyo tahay hooyo caajisan oo maantana telefoon ama social media ku mashquulsan ama meelaha iska jiifto oo musalsal le daawanaysa ama guri le maantana ka shaqaynaysa, waxaad ogaataa cunugii wixii uu kugu arkayo ayuu ka dhiganayaa mustaqbal. marka insha Allah ilmaheen mustaqbal wanaagsan ayaan la rabnaa. hooyo walba caruurteeda maanta nolosha heer inay ka gaaraan ayay rabtaa adduun iyo aakhirbo, laakiin waxaa muhiimsan in aad wadadii aad tustid. wadada aad iyo aad ayay ugu adag tahay caruurta in ay arkaan. marka adiga ayaa waalid u ah, adiga ayaa hogaamiye u ah, adiga ayaa macallin u ah inaad wadadii aad tustid waaye. insha Allah asxaabi waxaan rajeynayaa in videoga aad u aragtaan dhiirigelin. xumaan ayaan laga qaadanin, qofna ma dacaayadeynayo, qofna macaanayo, qofna ma xumaynayo. waxay iga tahay kaliya leh in aan is dhiirigelino oo idinkana aniga ay dhiirigelisaan, anigana idinkaan idin dhiirigelin karo insha Allah. marka qof walba hooyo waxaan leeyahay dadaal, waqti ayaa leedahay, waqtiga weli muusan dhamaanin. wixii aad rabtid insha Allah waa qabsan kartaa. adduunyada ayaaba lagu bir iska ah. inta dhibaatada la marayo oo dhan haday noqoto dhanka waxbarasho ama haday noqoto dhanka shaqo waa wax yar oo iska kooban. marka insha Allah inaad dulqaad aad yeelataan oo wixii caloosh aad u xirataan oo ku indha adeegtaan oo aad dhahdaa war waxani waan awoodaa, waxani waan aqaanaa, waxani waa keeni karaa. dhib walbaba aad u martid, waqti walbaba ha kugu qaadato. muhiimadu waxaa waaye inay niyada ay ku dhisan tahay. waa dhigi kartid waan aqaanaa, waan awoodaa, waana sameynaya insha Allah biidnillaahi kariim. insha Allah asxaabteyda waa inoo video kaleeto iyo dhiirigelin khayr ayaan idin dhaafay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.